ninkan freezerka tubadaas ku xiran hadii oo ay labadan qof aysan ay arki lahayn Jad iyo Island gabadhan saas ayuu xaqeeda oo ku dhumi lahaa mystery bal ana ragna qisada dhamaysanaysa u fahantiisiin share garay waa codsi asxaabtaada ugu mid noqdaan walaalada nagu xiran hanoo bilaabato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسون قدرنا كسونا لذيذا هون ولا شيء هذا شالك ديجا داوني سوى شالك ديجا برتين هذا أونلاين هذا نقول سبتاي داو سولو قاعد مفرن سبسكرايب نقولي رجلي فيديو قلنا لايك صار لايك في ربنا نسكسر فري ما هنو صار لايكسين شير كري فاميلي أصحاب هذا اللي بدك تسوي من ضمن هذا فاميلي أنت حيدي قاعد صنايا هويدي إلهي ونحرسته أو يسوع كريسي دمز هويدي أيدي أيام قلبي يجي جرتسو يجسو دحين وإلهي ونحرسته أو قبل كده واسعيه أو كرفنته وجديديه كوي يوم مالك لقتيه لقاوية هاي عرش إلهي كوي هرصدين وإلهي كديجو جنادين وإلهي نو كل مي اللهم آمين يا رب. قصة أنت أنا إنو جود قلين ماشى وحبة أو جديدين كل دتك يوتيوب كيجا أصحابتي ده هرت بدنا سناب شات انستغرام كيغا ما تقانانا ومالينا هذا شاشada aad uga jeedaan soo badana snap chat ka ayaan active ka ahay snap chat ka iga soo aad gareyso si aad u ogaatid meeshan waxa ku jiro boxkan waxa ogaatid waxyaabo badan in lagu soo daray productigeega cadar unsi qadareen iyo lubaan afartaas shay ayaa kreemada lagu soo ziyaadiyay soo saas oo la socda hadanay dadka Afrika jooga oo dhan wali Afrika lama keenin ee productigeega saas oo la socda insha Allah walaaladeeda Afrika jooga dalkeeni hooyo Soomaaliya Somaliland Kenya Ethiopia markii la keeno waa idin la soo socodsiin doona anoo bilaabtay yaan idin ku daalin qisada maanta waxaan joognaa Avalandeerinta oo farti soo taagil baadarayaalo maanta waxaan joognaa qisadani dhowr stadio ay taabanaysaa laakiin qisadan waxay ku socotaa gabadh magaceeda la yiraahdo Deniz Hober yaa waay aan idin bara marka Deniz Hober asalkeedu waxa waay gabadh Amerikaanada waaye waxay dhalatay 1967 markii taariikhdu ahayd waxayna ku dhalatay New York ay ku dhalatay kadibna waa ay ka move gareen ayadii familigeeda waxa la dhashay hal wiil kaliya ta asagana waxa la yiraahdaa magaciisa aaway oo Ilaahay yaqaan wiilka la dhashay Jace ayaa la yiraahdaa walaalkeed halkaas wiil kaliya ayaa la dhashay sawirka familiga waa u jeedaan okay waxay u soo guureen California waxay u soo guureen 1970 markay ahayd markii Deniz gabadha qisadan ku socota ayaa curada ah markii la soo guuray ay California maanay 3 sano kaliya ay ahaayeen waliba California waxay ka sii tahay Newport Beach meel la yiraahdo asxaabay I hope ina magac sax u dhahayo qof meeshaas jooga haduu jirana saasode hana la soo dhaweeyo okay sida la sheegayo Deniz Hober familigeedu masaga hooyadeedii iyo aabaheed waxay ahaayeen dad yaani ma sha Allah aad u wanaagsan oo day dabcan hooyay aabo dhaqaale heestan way ahaayeen intaas marka laga soo tago isla California ay high schoolkeeda ka dhameysay waxay halkaas ay jaamacadda waxay ka soo baxday waliba jaamacadda 1990 waxayna sida la sheegayo ay baratay qaybta siyaaxiga ayay baratay oo hoteelada iyo ama afaarahaas ayay baratay gabadhu waxay si gaar ah u xiisayn jirtay music-yada iyo partiyada iyo show-yada in ay tagto misaba ay ka qayb qaadato okay qisadani marka waxay dhacaysaa 1991 waxayna soo afjarmi doontaa 1996 okay المهم كدب قبل دينيز هوبر ويل ستيفن اللي يراهدو أي يعني بوي فريند كذا هاي أو أي إسجعلاين إلا إيه جامعة إسلسولي جنجري ستيفن مركز صور كيسوا وجيدان المهم قصة يعني مركز وحي بلعبانيسا هابينك أما سي كون ساقال بقو ساقاشن يكود بيش جولاي لبيه توبن كيدي بيبي فوزية سوجيدة صوت كذا مقلوسين كون ساقال بقو ساقاشن يكودي جولاي توبن يلبديدي هابينيمدي أيا waxaa jirtay baa sala sheegayo show marka saaxiibkeeda boyfriendkeeda iyo ayada waxay soo gaday laba ticket oo irida looga galay showga of course kadib Steven wuxuu ku yiri aniga waan mashquulsanahay shaqada ayaan ku jiraa ma tagi kari ee saaxiibka ama se friendkeena wado oo la yiraahdo asagana magaciisa Robert okay
Robert ayaa ku tiri hadaba let's go aan baxna Robert showgi ayaa la tagay showgu marka sida la sheegayo ugu dambeyn wuxuu dhamaanayay 5 saac habeen ama 12 habeenimo sida saacadu ay tahay PM okay showgi markuu dhamaaday in guriyaha la kala aado soo ma ahayn ma aadin Robert iyo gabadhan Deniz waxay tageen night club kii tageen halkaas la baashaale kule waa faansidii waxa night club laga sameeyo almuhim ninkaas ay la socotay marka normal friend ay ahaayeen oo Robert marka uu saqraanay ahayd wuxuu iska badiyeen geedan baqtida of course baqti waa sama okay almuhim geedas baqtida iska badiyay ayada gaariga drive gareynaysay waxay ku tiri gurigaaga ayaan ku geynaa kadib laan aniga aan gurigayga tagi doona Robert iyo Deniz waxa isugu dambeysay saacadu markay ahayd fajirkii 4 AM o'clock ay gurigayga igeysay wiri kadib way baxday si ay ayada u hooyato ay guriga hooyadeed iyo aabaheed ay u aado hooyadeed iyo aabaheed marka la wareysan waxay yiraahdeen gabadheenu xalay markay guriga ka bixisay yani inta naga shumisay ayaa waxay dhahday hooyo iyo aaba waa idin jeclahay mana soo daahay iyo aan soo noqona because waa sheeka aan idin haay yani familiyadu waa wada sheekaysan dadkii ilaahay dabcan isku soo hadeeyo almuhim family marka way jiifanahay dabcan subaxdii marka la soo kacay way waayeen gabadhoodii dabcan oo gabadh idil oo inay imaatay laakiin waxay sidaahdeen mid saaxiibteed ayaa jirto mararka qaar markay saas habeenka u soo daahdo ay la seexan jirtay marka waxay yiraahdeen ama saaxiibteed yani late ay ku noqotay saaxiibteed u tagtay ee la soo seexatay hooyadii aabisaday sheegaya way iska kaceen shaqadoodii ayay kala tageen markay shaqadii ka soo baxeen galabtii 10 saac galab marka la maraayo ayay gabadhiina call laga heenin aysan joogin ayay saaxiibtood waxay dabcan waa walwaleen fazay mama babyda waati ila deeluso iska dulqaata المهم saaxiibteed ayay wacaan saaxiibteed markay wacaan waxay ku tiri may aniga ma arag xalay tole showgan uma aan raacin somoogi Robert markii la raadi Robert wuxuu yidhi xalay tole 10 saac ay ugu dambeysay guriga keenta waana saqraansana way guriga keentan way laabatay isla markiiba police ayaa la wacay waxaa la tagay jidkii night clubka ka soo laabanaya guriga gabadha gurigooda Deniz toos u tagay oo highwayga dabcan jidkii marka ay tageen hooyadeed iyo aabeed iyo saaxiibteeda gabadhaas Deniz oo qisadanba ay ku socoto waxay heleen gaarigii Deniz oo shaaga lugta gaariga geeskiisa midigta shaag laga qarxiyay shaaga marka la qarxiyo waa ogtiin shaaga geeskiisa laga qarxiyay kuji waxaana kaliya laga helay handbageedii lagama helin drive license-keedii lagama helin kaarkeeda oo bitaaqada ma laga helin kaliya waxaa la helay kabaheedii oo xabad kab bas ayaa la helay wax kale oo leelay iyo xilqada ay wadatay hal mir oo ka dhacday oo waliba dhulka taalay ayaa la helay isla markiiba police-kii ay waceen waalidkii police-ka meeshii imaadeen hala raadiyay gabadhii ayaa la wacay helicopter la kiciyay nakata kale adisha gabadhii ag iyo jan meel ay dhigtay kale adigu sheeg okay sidii marka gabadhii loo raadinayay TV-yada laga baafiyay kola dhacay la iska dhaafa TV-yada laga wacayay journalada laga baafinayay helicopter loo qaatay eeya la qaatay gabadhii meel ay dhigtay cag iyo jaan wax sheeg xataa waa la waay heer waxa la gaaray highway-gii gaarigeeda laga helay gabadha lagu misgareeyay korka sawirka uga jeedin in lagu dhajiyo sawirkeeda oo ma aragteen gabadhan oo xataa la dhaho qofkii gabadhan Deniz nolol iyo geeri wax noogu sheego $10,000 oo dollarka Mareykanka ayaa siinayna laakiin wax qabaar ma jirin qadiyadii saas ayaa marka waxay ku noqotay qadiyad file open oo yani anytime wax ku soo ziyaadi karaan sidii 3 sano ayay qadiyada gabadha Deniz waxay ahayd file furan oo wax xaliya la weysan yahay okay maalmaha kamide oday iyo naagtiisa sawiradooda sorry u jeedaan waxa la yiraahdaa Jode iyo Island sida la sheegay asalkooda Latin America soo degay ahaayeen ayaa waxay leeyihiin asal ahaanba ayagu meel lagu gado ranjiyada guriga ranji u taqaana Soomaaliya kalarka guriga la mariyo ranji waqana Soomaaliga lahjadiis maadaama badanta wax kala u taqaanid hoos iiga soo sheega horta niyo waa mahadsantiin ma yashkurunaas la yashkurullah aada u mahadsantiin sida marka aan idin asxaabe waxaas bal isoo fancy ay isoo fancyinsiin qeyrkiin Allah badiyo
okay familigan marka ninkan iyo naagtan way isqabin arona waa inay caruur lahaayeen in kale ma la soo sheegin oo muhiimba ma ahan almuhim ayaga waxay lahaayeen meel oo de ranjiga ranjiyada guryaha lagu gado so nin magaciisa asagana la leeyahay inuu yani nin magaciisa la yiraahdo John Famlaro سميعي أساس أنينك جون فاملر وأوجد سور كيسة دأدي سوحاوي صدن يسجل جنين ما أوسن جورسنين أو حوهانين إسك سينجل نين كاني مركو حولي هاي دور ستوريو أيولي هاي أو دكامو أو لو جدا رنجية ده كانوا حقوق سي جدا جملة يعني دكانو نولي هاي رنجية جملة أهانة واو كذا okay جود يا ايلاند marka ninkaana loo soo tilmaamay ninkan marka halkuu jooga way hodan ma isla California ma California ma jooga ninkan wuxuu jooga Arizona reer Arizona inta leedin kaga baa hoos ka soo muuji okay ninkan marka Arizona ayuu waqti xaadirkaas oo ku sugnaabay ahayd ninkaas loo soo tilmaamay marka gurigiisa ayuu ku ballamiyay aan waxaan bislayba ninkan haduu gurigiisa ku ballamin lahayn malaha yani saasu qadiyadu ilaa for life iska haan lahayd ninkii iyo naagtii gurigiisa ayuu ku ballamiyay gurigiisa markay ugu yimaadeen ayaa waxay arkeen waa aragteen guryaha marka aad gaari wadatid parking u baahan tahay soo maahan okay guri walba parking uu leeyahay guriga degan laba parking aan leeyahay so mid anaga mid dadka noo imaanay ama sadii loo baahdo way soo ma saas amal ninkan marka gurigiisa markay imaadeen parking ayaa waxay arkeen shaaxinad yani gaarigaas camal af Soomaali waxa lagu dhaho commenting igu soo sheega yani gawaarida oo ba aragtay waabeenka minibus oo aqaana aniga yani aan ku tilmaami karaa so bal adiga af Soomaali saxda u taqaanid amse ereygo saxda ku haboon gaarigaas u jeedin commenting igu soo sheega okay gaarigaas oo aniga minibus ahaana u aqaana oo Ethiopia laga dhihi jiray okay almuhim gaarigaas ay arkeen gaariga marka parkingku iska taagnaabay ahayd ayagana gaarigooga soo agistaajiyeen kadib waa soo dageen ninkii u galeen waa la soo wada deal gareeyeen deal baa yani heshiis si wuxuu kala gadan lahayn waxa dhan kadib waa soo baxeen markii soo baxayna waxay u fiirsadeen gaarigan motoradiisu inay wada fadhiyaan number 1 horta waxa shakiga keenay motorada gaariga inay fadhiyaan taas kooma tahay tan labaad waxay arkeen in gaarigani uu yahay gaari muddo la isticmaalin yani haa hodanay gawaarida waa aragtay muddo marka la isticmaalin waxay leeyihiin bus ayay leeyihiin waxay leeyihiin roob haduu waxna waa loo soo dhaqaa Soomaa gaari marka muddo la isticmaalin waa la dareemi karaa dadka gawaarida badana waxa kale hal shay ayaa shakiga keenay marka shakiga keenay waxay tahay sida aad u jeedin gaariga waxa iridaha Sano u furmaa labada irido Sano hal mar loo furay hoos ayaa marka waxa ka gashanaa irida dhamaa yani iridi waa kan moogtahay labadii iridood dhamaadkoodii inta camal ayaa waxa ka soo gashanaa gaariga fiilo saasa sax fiilo ayay ka soo fiiladii marka ay raaceen waxay galaysaa kitchenka oo ninkani John Famlaro kitchenkiisa ayay galaysaa ninkani naagta marka wayba cabsadeen wax kale ma soo dhiganba meesha waxay sidaa ninkani ama mukhadaraadka gadaa mukhadaraadka mesela nacasta saa u faantid drugs ama gadaa okay isla markiiba waxay waceen FBI da oo waxyaabaha nacasta ku shaqale ayay waceen isla markiiba FBI da timaado oo waxyaabaha nacasta ku shaqada leh isla markiiba waa la baaray shaaxinadii horto kaarta waxa ku dhagan moogtahay numberka taargada oo gaariga waxa ku qoran California isla markiiba booliska waxay qaateen numberkii oo taargada markay qaateen ay geliyeen waxa la ogaaday gaarigan 6 months ka hor in laga soo xaday gobolka California oo la keensaday Arizona okay markii la sii daba galayna oo yani qofkii lahaa la sii daba galay xuud aan 6 bilood ka hor ayaa liiga xaday soo waa raadiyay waa inform garay booliska u sheegay laakiin wax natiijo awaan waay almuhim waa la furo waxa laga soo saaray ranjiyo aad u tiro badan waxyaabo oo aragtay qashin camal laakiin hal shay ayaa yani booliska iyo ninkii naagti meesha joogay iyo ninkan asaga xataa John oo la soo qabto shaahid u ahaa waxay arkeen fiiladii shakiga keentay inay tahay
freezer weyn oo asulkiisa u jeedin oo meesha yaalay ayaaba ku dhagan yahay freezerka marka la taabtana wuu shaqaynaysaa ognahay freezerada banaanka marka laga taabto kuleel waay gudahana baraf ay ka suubiya so marka la taabtay freezerkani waa shaqaynaya freezerka marka afkiisa ayaa ninku wuxuu ku dhajiyay plaster waa naqaan plasterkii marka laga furay freezerkii dabcan la kala furay waxaa la arkay bacaha madmadow ee qashinka lagu aruuriyo oo ilaa aad dhowr xabadood ilaa 7 xabad laga tiriyay xabadii ugu horeysay markii la furay waxaaba kasoo horbaxay 2 gacmood isla markiiba waxaa loo wacay kuwa dileelka cranka ku shaqale waa la soo orday bacihiyaa la guray waa la baaray waxaa la ogaaday inuu yahay qofkani qof dhalinyaro ah oo gabar ah waliba oo dhalinyaro ah oo dhimatay muddo ka hor inay tahay haddana yani waxay noqotay ayadana waxay noqotay baraf way adkaatay yani ilaa intaasoo sano 3 sano dhan qof freezer ku jiray maxaa ka sugay يعني هيلب كان أنا عناب هدوب هالبل وكوجار سو نقضى أنا رجنا أصلا نوع كلا نقناه المهم نينكي إسلام مركي بأصلا ولا لا أرضي مركي باريتان كلو بلعب حير أنا قال الله يرى وباهنا هاي من هلا الله يرى طبعا حق ونقولي هاي قف قاعدة دي دم بأجشد أو كعب سنس إنا وحق لديد أو ولا عقليد وبكوز هذا قلد يرجشد أدي لبعض الكوسي زيادة مكتوب حدي كرتا الله يرى وباهنا الله يركيه هاي ماذا عندكم فرص جارين كرتا ملهن المهم نينكي الله يرى أيوة البضي باريتانكي مركا لا بلابي او دي طبعا غوريغيا لوغو فافي او لا راديناي waxaa la helay driving license illa 4 gabdhood oo kala duwan driving license kooga qaar kabahooda qaar dharkooda gabadhan marka Deniz waxaa la helay driving license keedi oo kor saaray joornaaladii markii 91kii la raadin jiray oo idila TV-da joornaalada lagu soo qoray qisadeeda ayuu yani hada saan anoo kale وكان جورنال كيا كان وحن كور ساري drive license كيدي عمل أيو سمية إيا لما قبضوا كالساس رادسكي أيو كور ساري يعني دينيز هوبر لهيل ميد كيدي واكن فريزر كل حاجة شدو صدح لصنكو هاس لكن صدح دي قبضوا كالي واي ولا ميد أنا اللي هلي ولا نولا أنا اللي ولا مرك اللي ويدين حبي لي هاي أنا ما أجين maxay yihiin iyo ma garanay wax ii keenay yani indhu caradadka uga soo asaas saxsan gabadhan marka lagu yiri maxaasan ugu gashay oo yani Deniz aan ka wada qosad ku socdo waay maxay ku yeeshay maxay ka haleysay wuxuu yiri naag girlfriend-eeda ahaan jirtay oo aan wada socon jirnay markii taariikhda 1984 oo nin kale oo frankeyga igu cheat gareysay misaba igu qayaantay oo ayuu ekeed soo naagtaas waan bedilay ahaade naagtan maxaa mar labaad soo nooleysiyaa isdahay habeennimadii markaan ku arkay night clubkii ay tagtaa gabadhan marka laga soo raacay ma xasuustaa wanigi dindaa showgii markuu dhamaaday night clubkii tagtay night clubkii tagtay ayaan ku soo arkay buu yiri waanan cabsanaa waxaan istusay misaba aan basawirtu yiri naagtii aan dilay inay weli nooshahay man naag aniga ichid garaysana ma noolaan karto saasaan u dilay gabadh marka dilka waxa lagu dilayna maskaxda lafta maskaxda ayaa qaraxda u dhowr jub ka gaartay soo saas u dhibada almuhim ninkii waxa la maxkamaday 1996 bishii koobaad 14keedii ayaa waxa lagu xukumiyay dil ila dilo oo xirbad la duro waliba sidii ayaa waana lagu fuliyay dilkii soo bal adiga qisadan soo aragtaa yani qofaad jecleed oo ku jiid gareeyay oo badishaba tii xataa laba qadiye saas ugu noqotay moogtahay tii horena uu dilay tan waa dilay lama qadiye ugu noqoto dil loo xukmiyay yani qofkii aad jecleed oo dishay qof ayaga daaragt miska dilay waay su'aasha meesha taal salaamad min kulli afad kala asxaabta xidhi jahodana inta laga soo dalban doona weegan aniga hadda lockdown ku jira hotelkan jooga insha Allah weegan marka lockdown ka baxo video khaas productiga dhan aan idin soo bandhigayo ayaa idin ku soo tusi doona waxa kale oo maqlay cadarada liquid ka banaanka wixii UK ka baxsan ما لو ديري كرا ولا سوء عليا سوريا يوكي أيا ولا عذر كان نصيب وحيابا كلا ولا ديري كرا تركيا أنا ما لو ديري كرا ليد ولا كريم ولا anything سوريا تركيا وهايدين كرا اللي قلنا يا أنا وحن كسوية لما أهن so عندك دالبنا هاي سودينا ويجا صوص على الأمات كيس إن شاء الله هالفيديو أيا إنه سو هبين دونا أيدين كوكسو بنيجي دونا نمبر كات كسو دالبنا يسان إيو everything I hope إن قصة ما تيدين حجوسي كوري هاس وقتي غالبا وكما سنتين ولا شين هذا إنتان ككل من حيدين كجتجايا في أمان الله.